السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناقصن إذلانتي مضاوضي الكسر هذا مركل برامج كورجيسيدا وإذا كي من تي في كمدح بنان ري تي في برامج كا وحين على بقصة قادنا وربحنا دي ودن بيه وحقق قرين جودهان ورجيسيدا الدلك يتبدأ وحنيني لسه عسين دون عني واحد شكو محمد علي كسر هذا برامج كداوضي يعني. aan soo qabto warbixinta koowaad ee barnaamijka daawadayaal biyo qasabadaha ka soo daaya oo si fudud u gumanaya oo khalkhal ku abuuray degmo ka tirsan dalka Shiinaha warbixintan xiiso leh waa wax ka qoray wargeyska Foore warbixin uu wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Ingiriiska uu faafiyay ayaa sheegaysa in dadka degan degmada Banjin ee gobolka Liaoning oo waqooyiga bari ee dalka Shiinaha ah ay qasabadooda biyaha ku arkeen maado dabka si fudud u qabsanaysa oo olol sameynaysa muuqaalo fiidiyoo ah oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa iyaguna muujinaya dadka oo dab qabasiinaya biyaha qasabadaha oo sida shidaalka oo kale u gubanaya arintan ayaa dad badan argagax iyo waliba u qaadan waa ku abuurtay gaar ahaan markii ay soo baxeen digniino sheegaya inaanay dadku biyahaasi ololaya cabin waxa kale oo baraha bulshada buuxdhaafiyay muuqaalo muujinaya dadyow kala duwan oo biyaha gubaya halka warbaahinta bulshada qaybaheeda kala duwan ay faafinayaan warar been abuur ah oo muujinaya qasabadaha oo biyihii oo iskood u ololaya ay ka soo baxayaan arintan gubashada biyaha ayaa timiday iyadoo horeyna 22kii bishii November ee isla sanadkani ee dadka isla deegaankaasi laamaha amniga gaarsiiyeen cabashooyin sheegaya in biyaha qasabadaha ay la socoto maado dufana oo marka biyaha gacmaha lagu dhaqdo uu dufanku ku sii hadhayo gacmaha si kastaba ahaatee xaqiiqda ugu dambeyntii ka soo baxday ayaa noqotay in biyaha degmadan ay ku soo farurmeen keedka gaaska dabiiciga ah oo in yar oo ka mid ah ay ku daadatay taasina ay tahay sababta gubashada waxaan filayaa daawadayaal inay warbixintaasi idin xiiso gelisay bal markana soo qabto warbixinta xigta ee barnaamijka kitaabka quraanka kariimka ah oo dhameystiran oo laga qoray dhiigii madaxweynihii hore dalka Ciraaq Saddam Hussein warbixintan xiiso leh waa wax ka qoray wargeyska Geeska Afrika waa kitaab quraanka kariimka gacanta ayaa lagu qoray khadka ku qoranna waa dhiigii madaxweynihii la dilay ee Ciraaq Saddam Hussein muddo 2 sano ah ayaa farshaxan u dhashay dalka Ciraaq oo qorayay iyo gabar kalkaaliso caafimaad oo dhiigga keenaysay ayaa ka shaqeynayay qoraalka kitaabkani waa kitaab dhameystiran oo lagu qoray 27 litir oo dhiigga Saddam Hussein laakiin ma aha dhiig la soo qaaday markii uu dhintay ee waa dhiig isagoo caafimaad qaba oo ku talagalay si joogto ah looga shubayay si loogu qoro kitaabkan quraanka kariimka ah muddo 17 sano oo ka dambeysay markii uu Mareykanku qabsaday Ciraaq lama arkin kitaabkan ama ugu yaraan indhaha dadka ayaa laga fogeeyay lamana oga waxa ay ku falaan ama sida ay ula macaamilaan hogaamiyayaasha cusub ee Saddam Hussein uga dambeeyay talada Ciraaq kitaabkan 35 sano jirsaday waxa uu waqtigan ku keysan yahay masaajidka Macarik ee magaalada Baghdad waxaana la sheegaa inay maamulada siyaasiga ah ee Ciraaq ku adkaatay sidii ay uga takhalusi lahaayeen kitaabkani xilli ay dagaalo kula jiraan dhammaan raadadkii Saddam Hussein iyo jiritaanka wax kasta oo hogaamiyahaasi calaamad u noqon kara laakiin xasaasiyadda arintan awgeed kuma aysan guuleysan inay kitaabkan tirtiraan ama gubaan sababta ugu badanna waa kitaabka oo gacanta ugu jira odayaasha iyo hogaamiyayaasha awoodda leh ee sunniga dalka Ciraaq wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska oo warbixin ka sameeyay kitaabkan ayaa sheegay in isaga iyo waliba xamaam kale oo Saddam Hussein lahaa ay gacanta ugu jiraan hogaamiyaha culimada al-sunna ee dalka Ciraaq Sheikh Ahmed al-Samarail bal markana aan soo qabto warbixinta xigta ee barnaamijka daawadayaal waxa dunida toddobaadkan aad u soo jiitay qisada lamaane araga naafaka isla markaana xiriir jacayl hore ayaa loo yiri jacaylku waa indhoole laakiin maxaa dhacaya haddii laba qof oo indhaha naafaka ah ay isjeclaadaan waa jacayl gabi ahaanba ka duwan midka caadiga ah waa jacayl aan ku dhisnayn muuqaal wanaag iyo waliba qurux ayuu yiri Niraj Gera oo ah sawir qaade u dhashay dalka Hindiya
oo abaalmarino kala duwan ku guulaystay. musalsal sawiro ah oo uu dhowaan soo bandhigay ayaa uu Master Gera kaga sheekeeyey qisada nin iyo weliba haweeney araggala oo isjeclaaday, wuxuuna sheekadooda ku cabiray ilaa iyo 13 sawir. maalin maalmaha ka mid ah bishii Julaay ee sanadkii hore, waxaan ka dukaamaysanayay dhismaha Kanaaf ee ku yaala magaalada New Delhi. waxaan arkay lamaane qurux badan, way socdeen, gacmaha ayayna iska haysteen iyaga oo dhoola cadeynaya oo sheekaysanaya, ayuu yiri Master Gera oo la hadlayay BBC-da. lamaanahan waxaa caawinayay nin kale oo ku hogaaminayay qeybaha kala duwan ee dhismaha. Master Gera wuxuu sheegay in xaaladda lamaanahani ay aad u soo jiidatay. waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan arko lamaane aragga naafo ka ah, sidaa aawadeed wuu u tegay, wuxuuna ugu yaboohay inuu geeyo astaanka. intii aanu sii soconnay waddada waan sheekaysanay, markaa waxaan weydiiyey haddii ay raalli ka yihiin in sheekadooda la faafiyo, taasna way iga oggolaadeen. musalsalka uu sameeyey sawir-qaaduhu wuxuu si buuxda ugu sharaxay qisada jacaylka dhabta ah ee Deepak Yadav iyo weliba Arti Chorsia oo labadooduba da'doodu tahay 21 sano jir. markii ugu horeysay waxay iska barteen Facebooka. Deepak waxa uu sheegay in isaga iyo weliba gabadhuba ay isticmaali jireen telefoonno casri ah oo laga heli karo adeegyada loogu talagalay dadka aragga naafada ka ah. maxaa sababay in saynisyahanada amaba khubarada caalamka isdilaan iyagoo caanka ah dunida? warbixintan xiisaha leh waxa wax ka qoray wargeyska Geeska Afrika. waxaa dunida yaab ku ah sababta ay khubarada sayniska iyo weliba kuwa falsafadu ay naftooda u galaaftaan iyagoo bulshada caan ka dhex noqday aqoonna soo kordhiyey. Master Kelly waxa uu ahaa khabiir ku takhasusay samaynta hubka, waxaana u dhashay dalka Ingiriiska, waxaana ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ingiriiska. khabiir Kelly waxa kale uu ka mid ahaa xubnihii qaramada midoobay soo xulatay Ciraaq sanadkii 1994 ilaa 1999 si ay u soo baaraan hubka halista ah ee Saddam Hussein lagu eedeeyay inuu haysto. waraysi uu la yeeshay saxafiga BBC-da ee Anthony Gilgan oo ku saabsanaa shakiga iyo been abuurka Pentagon-ka ee hubka Ciraaq iyo warbixinta burburinta ayaa ku abuurtay Master Kelly dhibaato nafsi ah. bishii Julaay 17keedii sanadkii 2003 ayaa meydkiisa laga helay guri u dhow magaalada Oxfordshire. baaris rasmi ah oo lagu sameeyay ayaa muujinaysa inuu qaatay 29 kiniin xanuun baabiya ama painkiller ah isagoo nacay nolosha, doonayay inuu dhinto. Kelly waxa uu dhashay sanadkii 1944. Master Ferrell Legasov isaguna waa khabiir saynisyahan oo u dhashay dalka Russia. waxa uu lahaa aqoon xeel dheer oo cilmiga chemistry-ga ah, isla markaana waxa uu ahaa xubin ka tirsan Akaademiyadda Sayniska ee Ruushka. waxa uu dhashay sanadkii 1936. si cad ayuuna uga hadli jiray halista ay leedahay hubka atomikada. waxa uu ka mid ahaa guddida loo doortay inay soo baadhaan qaraxii hubka halista ah ee 1986 ee ka dhacay Torbashil wadanka Russia. dalka Taiwan oo la sheegay in caruurta ay da'doodu ka yar tahay 14 sano jirka ay ka tira bateen xayawaanada la rabaayadeyso isla markaana lagu dhaqdo guriyaha. gaadiidka ay la socdaan ayda iyo bisadaha midabada kala duwan lihi waa mid ka caana caasimadda dalka Taiwan ee Tiabi, waxaana sabab u ah sharciga dowladda oo dhiirigeliyay in guryaha lagu xanaanaysan karo xayawaanada kala duwan sida ayda iyo weliba bisadaha. arrintan ayaa muujisay in xayawaanada guryaha ku nool ay ka badan yihiin caruurta guryaha ku nool, waxaana ay keentay in hoos u dhac weyni ku yimaado heerka dhalashada caruurta ee dalka Taiwan. Master Tom Barker oo degan Taiwan ayaa waxa uu wargeyska The Guardian u sheegay in ayda ku nool dalka Taiwan loo xanaaneeyo loona daryeelo si wanaagsan, isla markaana lala socdo caafimaadkooda. saraakiisha Taiwan ayaa ku qiyaasay xayawaanada lagu hayo guryaha inay gaadhayaan 3 milyan tiro ahaan, tiro koobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkan sii dhamaanaya. waxa ayna sheegeen inay ka badan yihiin marka la barbar dhigo tirada caruurta ka yar 14 sano jirka ee dalkaasi ku nool. warbixinta waxaa kale oo ay cadeysay in hoos u dhac gaadhaya 6% ku yimid dhalashada caruurta dalka Taiwan laga bilaabo sanadkii 2016 ilaa 2019 sida ay baahisay Taiwan News. arrintan ayaana sabab looga dhigay in dalkaasi aan laga ogoleen in shisheeyuhu gabadh ka guursan karo iyo in hooyada umusho la siiyo fasax gaaban.
iyo weliba mushaar yar muddada ay ku jirto wakhtiga umusha, taasi oo caqabad ku noqotay in hooyadu dhalmada ku dhiirato maadaama ay cadaadis nolosha ah kala kulmayso. dalalka Mareykanka iyo Japan ayaa iyaguna la sheegay in tirada xayawaanada la dhaqdo ee dalalkaasi ay ka badan yihiin tirada carruurta ee dalalkaasi. nin ku dhaqan dalka Kenya oo muddo 19 sano ka hor ku dardaarmay in meydkiisa marka uu dhinto lagu aaso goob, isla markaana waxa uu booqan jiray isla goobtii maalin walba. ugu dambeyn isaga ayaa lagu aaso goobtii. warbixintan xiisaha leh waa wax ka qoray wargeyska Hadwanaag News. muddo 19 sano ka hor Samson Mungera waxa uu diyaariyay qabrigiisa lagu aasi lahaa isaga iyo weliba xaaskiisaba, balse ugu dambeyntii dhawaan ayaa eelka la dhigay. ninkan oo ku geeriyooday da'ada 77aad ayaa hawsha diyaarinta qabrigiisa gudagalay isla markii uu howlgab ka noqday shaqada ku dhawaad 20 sano ka hor. isla meeshii uu samaystayna waa lagu aasay, waxaana labada qabri oo gurigiisa ku dhex yaala laga dhigay kuwo isku dhinaca, wuxuuna qorshuhu ahaa in ninkan iyo weliba xaaskiisa kii hor geeriyooda qaybta hore lagu aaso, si kan kalena qaybta xigta loogu qoondeeyo. warqadda uu qoray ganacsadaha 2003 ayuu ku cadeeyay inta badan dardaarankii uu bixin lahaa ka hor inta uusan geeriyoonin iyo weliba sida uu qorsheeyay dhaxalkiisa geeridiisa kadib. arrintan ayaa ay dad badani u arkeen rajo uu qabay Samson oo loo hirgeliyay geeridiisa kadib, balse qaar ka mid ah qaraabadiisa ayaa fikrado kala duwan ka qabay halka dhab ahaantii ahayd in lagu aaso. sidoo kale odayaasha dhaqanka ee beeshiisa ayaanan soo dhaweynin fikradiisa. waxaan doonaynay in lagu aaso meesha uu aabihii ku aasan yahay, laakiin markii uu isugu keenyeedhay uuna noo sheegay inuu doonayo in goobtan lagu aaso, waddo kale nooma furnayn oo aan ahayn inaan iska aqbalno. sidaasi waxaa warbaahinta ku yidhi Gibson Muthera oo ah walaalkiisa ka yar. xaaska ninka dhintay oo lagu magacaabo Ansi Mungera ayaa sheegtay inay raali ka tahay go'aankaasi. Samson wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ismaamulka Iswela ee dalka Kenya. sheekadiisana waxaa isbuucan si weyn u hadalhayay warbaahinta kala duwan ee dalka Kenya. xaaladan ayaana noqotay mid si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalka Kenya oo ay qisadani ka dhacday. nin sameeyay naxashka lagu qaado meydka oo hal maalin ku noqday milyaneer. waa hal maalin kaliya. warbixintan xiisaha leh waxa ka qoray wargeyska Geeska Afrika. nijaar u dhashay dalka Indonesia oo ka shaqeeya sameynta naxashada ayaa habeen iyo dharaar dhexdooda maalqabeen noqday kadib markii uu gurigiisa ku soo duldhacay dhagax shuhub amaba cirka soo dhaca, waxaana looga iibsaday dhagaxaasi lacag dhan 1.8 milyan oo dollar. sidaasi waxaa qoray wargeyska Metro oo ka soo baxa dalka Ingiriiska oo warbaahinta dalka Indonesia ka soo xigtay. Joshua Hotagala oo ku nool tuulo lagu magacaabo Sumatra ayaa maalin maalmaha ka mid ah horaantii bishii Agoosto isagoo ku dhex jira howl maalmeedkiisa caadiga ahaa waxaa mar kaliya uu maqlay dhawaq aad u dheer oo marka hore dhinaca cirka ka soo socda. ilbiriqsi gudihiisana isku bedelay sanqadh daran oo gurigiisa gudihiisa ka soo dhex baxaysa. bilowgii hore cabsi aad u xun ayaa gashay, laakiin markii uu eegay gudaha waxa uu arkay dhagax leh muuqaal aan horey loo arag oo inta uu saqafka birta ah soo jiiray guriga gudihiisa dhul dhan 13 sentimitir hoos u galay. walaxdii dhagaxa ahayd ee dhulka gashay ayaa uu soo saaray, sida idaacadda BBC-da qaybteeda Indonesia la hadasha uu sheegay, isagoo intaasi ku daray in markiiba uu galay dareen ah in dhagaxani uu samada ka soo dhacay, maadaama oo miisaankiisa, awoodiisa iyo weliba xawaaraha uu ku socday iyo weliba diirimaadka uu ku arkay ayna suurtagal ahayn in gacan bini'aadmi soo turtay. Joshua waxa uu shabakada Facebook ku faafiyay sawirada uu dhagaxii ka soo qaaday, taasi oo ka dhigtay sheeko warbaahinta bulshada aad ugu faaftay oo dunida oo dhan gaadhay.
xildheerayaal kala duwan oo caalami ah ayaa arrintani xiiseeyey, laakiin xayiraadii covid-19 oo wakhtigaasi Agosto ahayd ayaa sababay in aan loolan iibsi ah la isugu imanin guriga Joshua oo ugu dambeyntii dhagaxani lacag dhan 1.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah kaga iibsaday xildheerayaal Mareykan ah kadib markii ay iska hubiyeen in dhagaxani aan wax dhibaato ah soo gaarin muddadii uu ninka gacanta ku hayay. Wargeyska Metro waxa uu sheegay in dhagaxani uu noociisu yahay mid dhifa, cimrigiisana lagu qiyaasayo 4.5 bilyan oo sano. Helitaanka dhagaxaanta noocani ahi waxay saynisyahanada ka caawinaysaa inay helaan xogo dheeraad ah oo la xiriira cimriga dhulka iyo weliba nolosha ka dhex jirta. daawadeel waxaynu soo gaarnay guntii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka wargeysyada oo idinkaga imanaya TV-ga madaxa bannaan ee Ria TV. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa guudaan asxaabtii kala qayb qaatay barnaamijka. intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga dhammaantayo iyo dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.